السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وشمال ميديا oo halkan idinka soo gudbinaya qisayar oo cajiib ah taasoo ku saabsan haweeney cadaan ah oo qaadatay diinta islaamka kadib markii ay daawatay filimka aadka dunida looga daawashada badnaa ee Ertugrul oo ahaa filim musalsal ah oo ka hadlayay dhaqanka islaamka iyo isaga oo sifeynayay inay islaamku tahay diin nabad cadaalad iyo sinaan ku sifaysan haddaba filimkaas Ertugrul oo musalsal ahaa lagana sii daayay TV-ga caanka ah ee laga leeyahay dalkaasi Turkiga ee loo yaqaano TRT ayaa waxa ay haweeneydan oo cadaan markii ay daawatay filimkaasi waxa ay bilowday inay baaritaan ku sameyso diinta islaamka iyo habdhaqankeeda iyo taariikh ahaan qofkii ilaahay hanuuninaya ayaa hanuun u sugnaaday waxa ilaahay mahadiisa haweeneydan oo markii ay diinta islaamka ku qaadatay da'da 60 jir la magac baxday Khadija ayaa waxa ay tiri waxaan markii hore dareemi jiray diiqad iyo inay wax iga maqan yihiin hase ahaatee maanta oo aan qof islaam ahay waxaan aad ugu faraxsanahay diinta islaamka ee aan qaatay waxaan ahay bay tiri qof aad iyo aad uga degay culeys saarnaa haddaba Khadija ayaa waxa ay diyaarinaysaa inay soo aragto goobaha cibaadada ee taariikhiga ah ee ugu horeeyay Grand Mosque iyo meelaha muusiyada ah ee ku yaala gudaha dalkaasi Turkiga haweeneydan oo u warantay wakaaladda wararka ee laga leeyahay dalka Turkiga ee Anadolu Agency ayaa sheegtay inay aad iyo aad ugu faraxday uguna qanacsan tahay qaadashada diinta islaamka iyadoo tiri filimka Ertugrul ka hor kama aanan haysan islaamnimada fikir ah inay yihiin wax xun ilaa aan markii aan daawaday filimkaasi uu iga saaray waxyaabo badan oo aan ka qabay diinta islaamka taasoo uu horseed u noqday maanta oo aan ahay qof islaam iyadoo tiri ilaahay ayaa mahadale waa Shubaal Media tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh